السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب ميل بلاجو تمام السلام يا وعيوا باشا عبد القادر مسجل كتاب سنة وباشا تقيس إن شاء الله دين كتاب سلطان سبسكرايب نوصار أصحاب تذا لو ذاك سوي حوي أصحاب لنا يقول فايدستان عشرة ذي حوي يو أونلاين انفستمنت في وحيانا مقرنسا أونلاين ماركت فوركس تريدينج كان نرد حوي مش كله ذاكنو إن شاء الله دولا يرادو أو موضوع إنه حوي مع شركة إن شاء الله إن أو حوي هل كان إنه كنت سوي حوي قاب كلا سيجدي وكليو بينات سيجا فاين لو ودكتو runtii waxa weeye mar raba inaan dheereeyo casharkan waxa weeye easy steps baan rabaa inaan ku tuso marka ugu horeysa si waxa weeye akoonkaaga Binance aad verify uga dhigatid waxaa loo baahan yahay email leedahay emailkaas waxa weeye Binance ku samaysatay waa inuu ku diyaarsan yahay kadib xagee imaanaysaa kadib waxaa imaanaysaa waxa weeye telegramkeena Binance linkigiisa hadii aad rabtid telegramkeena imaan ka dhaca qaybta baasha fx kadibna waxa weeye Binance waxa weeye linkigaas aad ku dhufanaysaa copy baa soo dhacanaysaa kadib waxay imaanaysaa Chrome-ka kadib waxa weeye waxa meesha search-ka ku qoraysaa waxa ku dhacaysaa waxa weeye paste kadib okay baa dhacaysaa waa waxa weeye dib badan maaha wax iska fudud runtii waxa weeye mataqaanaa waa easy step weeye haddii aad fahantid kadib maxaa samaynaysaa kadib wuxuu ku leeyahay where do you live ku leeyahay where do you live ku leeyahay ku nooshahay kadib waxaad dooranaysaa Uganda aniga Uganda ku noolahay Uganda iyo dooran adiga marka waxa weeye waddanka joogtid baa si automatic u saaraya kadib waxaad dhahaysaa confirm marka dhahdid wuxuu ku leeyahay emailkaaga gasho ku leeyahay emailkaagii waxa weeye aad gelinaysaa meeshaas emailkaas samaystay aad meesha waxa weeye gelinaysaa emailkaas samaystay ayaad meeshaas waxa weeye gashanaysaa kadib wuxuu ku leeyahay passwordka u samaysanaysaa password runtii aad ilaaweyn oo waxa weeye fudud baa u samaysanaysaa inta markaa samaysid kadib meeshaas waxa weeye I agree with waa dhihi kadhaa oo waxa weeye in macnaha xogta iyo waxyaalaha update-ka ay soo dhigaan oo kale ay gmail kugu soo diraan marabtaa uu ku leeyahay marka I agree with baa dhahaysaa kadib maxaa leedahay kadibna waxaa leedahay create account baa dhahaysaa inta markaa samaysid kadib meeshan ku keenaya waa security verification waxaan isticmaalaya waxa weeye application-kan oo rabo inay samaystaan horta inaad bini'aadan tahay in kale ku tijaabinaya marka meesha jaalaha waxaa ku aadinaysaa meesha soo qaadaysaa soo jiidaysaa halkaas ku aadinaysaa inta markaa samaysid kadib almost akoonkaaga waxa weeye wuxuu ku noqonayaa creative laakiin wuxuu ku leeyahay verification code geli verification-ka waxay ku soo dirayaa verification-ka wuxuu kugu soo dirayaa emailkii waxa weeye aan meesha kusoo samaynay emailka tegaysaa emailkii baa loo baahan yahay inaad tagtid kadib muxuu ku leeyahay emailka wuxuu kugu soo dirayaa codekaasa waxaa gelinaysaa halkaas codeka markaa gelisid email verified buu kuu soo qoraya almost emailkaagii waa la verify gareeyay inta markay ku soo baxdo almost wuxuu ku keenayaa meeshan marka waxaa ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay go to dashboard waa ku dhufan kadhaa halkaasaa ku dhufanaysaa haddaa rabtid ama verify-ga waa tegi kadhaa halkan buu ku keenayaa marka meeshaan markuu ku keeno maxaa samaynaysaa waxaad dhahaysaa verify waxaad dhahaysaa halkan ay ku qoran tahay verify ku dhufanaysaa si akoonkaaga waxa weeye verified uga dhigaysa kadib muxuu ku leeyahay
halkan buu ku keenayaa pagekan buu ku keenayaa ah personal verification kadib maxaa samaynaysaa waxaa dhahaysaa verifiedka meesha ay ku qoran tahay verified meeshaan buu ku keenayaa start nodal baa ku dhufanaysaa start nodal markaa ku dhufatid wuxuu ku weydiinayaa nationalitygaaga waxaa dhahaysaa oo kale Soomaali baa dhihi kadhaa hadba waxa weye waddanka aad waxa weye nationality ka haysatid baa gelinaysaa meeshaas xaggaan oo kale Soomaaliya oo kale haddaad dhahay Soomaaliya baa dooran kadhaa kadib first namekaaga oo kale sida passport kugu qoran baa loo baahan yahay meeshaan dhalinyaro badan waa jiraan halkaas ka khaldan badanaa meesha waxa loo baahan yahay waxa kugu qoran passport Hashi middle nameka Abdulqaadir oo kale last namekana waxa weeye Muuse Kareeta ama adiga hadda waxa weeye magacaad ku qoranaysa bay ku xiranta kadib date of birthka waxa weeye waxaa ka dhiganaysaa ku dhufanaysaa meeshaas kadib waxa weeye sanadka dhalatay xilliga dhalatay baa dooranaysaa marka 22 gaas oo kale haddaa ku dulufatid wuxuu ku geenayaa waxa weeye xilliyada waxa weeye taariikhdii waxa weeye ku geenayaa ama sanadkii ku geenayaa kadib 96dii waxaan soo qaadanayaa January kowdeedii oo kale kadib waxa weeye continue dhahaya kadib wuxuu ku leeyahay residential address gasho waxaa iska gelinaysaa waxa weeye meesha joogtid bay ku xiran tahay address oo kala iska gelinaysaa kaba soo qaad gelinaysaa oo kale adigu address oo kale waxa weeye meesha degan tahay oo kale address oo kale waxaad gashanaysaa marka kaba soo qaad anigu waxaan gashanayaa oo kale addresskaas oo kale aan gashanayaa wadaan rabo kadib koodhka Soomaaliya koodhkeedu waxa weeye 252 ama lasta waa ka reebaysaa 25 waa ka dhigaysaa bas kadibna city uu ku leeyahay waxaa gelisaa waxa weeye magaalada aad joogtid waxaan dhahayaa kale Kismaayo aan dhahaya iyo continue aan dhahaya kadib wuxuu ku leeyahay meeshaan identity verification samee maxaa rabtaa inaad geshid meeshaan country of issue countryga waxa weeye aad xaggaan oo kale waxaa ka dhiganaysaa waddanka Soomaaliya kala dooranaysaa kadib waxa weeye wuxuu ku leeyahay passportkaaga geli passportka dooranaysaa kadib waxa weeye continue dhahaysaa kadib meeshaan waxay gelinaysaa waxa weeye halkan selfiga uu kuusoo dhigay baa ku dhufanaysaa wuxuu ku leeyahay passportkaaga waxa weeye wajahada waa sawiraysaa markaa sawir kadib haddana wuxuu ku leeyahay waxa weeye selfina waa inaad iska qaadaa marka selfie waa iska qaadaysaa selfigaasna waa inuu noqdaa ilaa iyo waxa weeye dhuunta hamar oo kale wixii ka sarreeya oo kale muhiimaddu waxa weeye labada dhagood iyo madaxaaga in la arko labadaasaa sawiraysaa kadib haddana stepka saddexaad wuxuu ku geenayaa meel ay ku qoran tahay wuxuu ku geenayaa waxa weeye garanaysaa sawir iska qaad buu ku leeyahay marka sawirka waxaa loo baahan yahay inaad ku aadisid labada dhagood iyo madaxaaga inuu siman yahay oo meesha dhexda aad ku beegtid baa la rabaa marka intaa markaa samaysa kadib sometimes dadka wuxuu soo qoraa verification pilot oo kale wuu ku soo celinayaa laakiin almost kama dhigna waxa weeye inuu verificationkii uu kugu diiday waxaa fiirsanaysaa waxa weeye dashboardkaaga magaca meesha waxa weeye waxaa ku dulfanaysaa contactkaaga waxaa fiirinaysaa waxa weeye wuxuu kuu soo qorayaa waxa weeye review aan ku wadnaayo sub buu kuu soo qorayaa marka meesha marka isku beddesha cagaar ama waxa weeye cagaar isku beddesho waxay ku noqonaysaa verified bay ku noqonaysaa oo tigna ay saarmato haddii kale waxa weeye under review kuugu wadayaa ilaa waxa weeye ay decisionka ayagu ay soo gaaraan haddii wax ku dhahan waxbaa kaa khaldan haddii kalena waxa weeye haddii ay ku siiyaan verified bay almost ku tahay marka
waxaan filayaa waxa weeye inaa si fiican u fahanteen easy steps wey wax weyn maaha linkii waxa weeye waxaa geliysaan description insha allah haddii la yidhaahdo qaabka lasaga diiwaangeliyo waxaan filayaa inaad si fiican uga bogateen easy step wax weyn maaha insha allah waxa weeye waxaan rajeynayaa videogan inuu aad ka hesheen channelka haddii videoga aad ka hesheen subscribe noo saar like noo samee insha allah haddii la yidhaahdo si asxaab badan ay uga faa'iidaystaan aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum warahmatullahi taala wabarakatuh